وآله وصحبه أجمعين. أما بعد صباح ونكسن ضمان شعب الصومالية كأنهان شعب الصومالية يكون طبعا دولة دولة الصومالية sidoo kale waa islaamay bahda saxaafadda saakay nagala soo qayb gashay saxaafadeedka waa ku mahadsantihiin timaatikii aad noo imaadeen iyadoo mawduucu uu yahayna hadaladii saakay ee saddex marayay warqadihii sida habaysnayn xataa oo aan asluubaysnayn loo qoray loo sameeyey baraha bulshada iyo meelaha kale ee shacabku ay ku xiriiraan lagu soo bandhigay warqadahaas oo warqado been abuur ah saan hore u sheegayna ereyga ku jira been abuurku waxa weeye waa waxyaabaha qaar marka la been abuur xataa been abuurku waa inuu noqdo been abuur cilmiyeysan farsamo ku dhisan oo xitaa ay adkaanayso in shaki laga keeno xaqiiqadiisa iyo inuu been abuurnimadiisa marka runtii dadkii qoray warqadaani kolley waa dad aqoontooda iyo kartidooda ayaa intaas gaarsiisay been abuurka noocaas inay sameeyaan iyadoo isla markiiba waxa weeye waa la fiiriyaan iyadoo aan u baahnaynba in layska weydiiyo su-aalaad layska weydiiyo ay la arkaayo dhowr meelood oo ka mid ah inay warqadaasi marka been abuurka warqadaas waa been abuur dadkii been abuurayna ee sameeyey warqadaasi cid ay doonta ha ahaatee kartidooda iyo aqoontooda iyo awooddooda ayaa intaas gaarsiisay in intaas ka badan waa samayn kari waayeen marka insha Allah intaas ayuu saxaafadeedkaygu ku saabsanaa waxaana diyaar u ah marka inaan guda galno wixii su'aalaad marka inaad weydiiso warqadda been abuurka aad aragtay maxay sheegaysaa warqadda runtii waxaan ku baraarugay mudan weliye dhowr taleefon saakay oo aan lay soo wacay oo adiga xitaa ka mid ah dadkii soo wacay warqadaasi waxaa ku qoran in aan dib u daalacdo warqadda waxaa ku qoran markaad fiiriso madaxa kore ee xafiiska dowladda koonfur galbeed ee Soomaaliya xafiiska guddoomiyaha magacaabid guddiga doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed kadibna waxa weeye waa magacyo ayaa ku qoran iyo xigasho la xiganayo qodob dastuurka ah qodobkaas oo aan waafaqsanayn magacaabidda aan sameyn doono marka xilligeeda la gaaro magacaabidda aan sameyn doono qodobka aan kuskan doono waxa weeye waa iyo qodobka halkan ku qoran laba qodob is waafaqsan maaha magacyo lagu soo qoray kadib hoos warqadda waxaa ku qoran dadkan sameeyay warqadan aan hore u sheegay awooddooda intaas gaarsiisayba xitaa waxay awoodi waayeen hadiiba ay waayeen xitaa shaabadii guddoonka baarlamaanka iyo saxiixiisa inay warqadda inay sideeda isaga dhaafaan magacuna uu ku qornaado warqadda waxaa laga dhigay warqad ka soo baxday ee guddoonka baarlamaanka xafiiskiisa isla mar ahaantaasna magaca guddoonka lagu qoray shaabad iyo saxiix aanan ahayn tii guddoonka aanan ahayn xitaa tii guddoonka aan dhihin xitaa aan ahaynba shaabadii baarlamaanku isticmaalo oo xafiiska oo xafiisyada dowladda ka mid ah shaabadeeda ayaa saaran marka runtii warqadda madaxeeda kore markaad fiirisaan ay ku qoreen dowladda koonfur galbeed ee Soomaaliya xafiiska guddoomiyaha warqadaha xafiiska guddoonka ka soo baxay weligeed saas looma qorin siiqataa ka duwan ayay u qoran yihiin warqadan horta runtii dib aan rabaa inaan taariikhda inaan u raaco waxaa jirtay warqad hadda ka hor bilayaal ka hor anoo xitaa safar dibadda ku maqan la qoray qaabkaan ay u qornayd isla waxaan dareemayaa ciddii warqadaas qortoon inay tan ay ka soo baxday saasay u qornayd laakiin warqadaas shaabadii saxiixnimo ma aysan saarnayn waxyaabihii marka warqadaas markii aan beeninayn aan ku durnay ayaa waxaa ka mid ahaa oo aan ku caddayn xitaa warqadda at least haddii warqad officialka xafiis guddoon ka soo baxday inay shaabad iyo saxiixii guddoonka inuu saarnaado marka maxaa u malaynaya tan marka ayagoo tii hore daba raacaya bal horaad qalab u samayseen warqad waxaad qorteen oo been abuur oo aanan shaabad iyo aanan saarnayn iyo saxiix aanan saarnayn tanna bal tii hore aysan ka noqonine farsamada hal la hagaajiyay ka noqotay shaabadii waxbay raadiyeen laakiin waxaa suurageli weysay inay helaan shaabadii waxa waaye xafiiska guddoonka saxiixiisi marka meel walba ay awood ay bidi karaan waxay maciin bideen marka inay warqadooda ku quruxsadaan marka shaabadaas oo aan waafaqsanin tii guddoonka oo aanan ahaynba xitaa wax uu baarlamaan u leeyahay ayaa saaran marka warqadaas totally been abuur waaye
guddi la magacaabay ma jiro guddi la magacaabay ma jiro ilaa xilligan aan kuu sheegay guddiga markaa hadda iisii sheegaya guddiga maalinta aan magacaabaya waxaan ka hor akrinaya magacyadooda baarlamaanka hortiisa sidoo kale bahda saxaafadda waxaan ka codsanaa waxyaabahan oo kale hadda waxaan arkay in markii ugu horeysa la yidhi baraha ee social media Facebook u badnaa meelihii lagu qoray Facebook waa wax private uu qof uu leeyahay laakiin markii website ama warbaahin ama idaacad macnaha way ay page-kooda internetka ay ku daabacaan waxyaaba noocan waxaa ka qumanaan leh sababtoo ah waa meesha kaliya Soomaali ay wararka ku kala qaadato waxa way waxay hoos u dhigaysaa kalsoonidii lagu qabay warbaahintaas waxay hoos u dhigaysaa xigashada mararka qaar la xigana waxay ahayd oo kaliya ku filan warqad noocaas oo kale xafiis ka soo baxday inay bal xitaa intaysan publish gareynin kor xafiiskii inay la soo xiriiraan ay yiraahdaan warqad noocaas ayaanu aragnay marka saas darteed annagana waxaanu xaq u leenahay u baahannahay mudane guddoomiye in nala siiyo koobi ka mid ah warqadaasi markaas warqadaa la siiyo ay soo daabacaan in baraha social media intay ka soo qaataan warqadii ay ka dhigaan macnaha sidii wax sugan oo jiro kana runtii waxa weeye waa nasiib darro waaye marka insha Allah bahda saxaafadda waxaan idinkula dardaarmaya wax walba oo aad rabtaan inaad ummadda inaad u sheegtaan markay ku saabsanta documenti oo la leeyahay xafiiskaasi ka soo baxday adoona soo qaadan koobi kale oo qofku waxa way hore u daabacay inaad xafiiskii la xiriirto aad tiraahdo ninkaasba koobi wuu soo daabacay anigana waxaan u baahanahay warqadii rasmiga ee koobiga halaysi gacanta laga saarayo طبعاً تدور مع بوسع ولحدا الشام وأبوه كعكاد ليش تدور مع هن وحوي ولحدا الشام أوكي بدو دور شنو حكوا يسوي دور في البرلمان أو في الكوه سفيع مركب إلى وقت لما حاسوب يسمع سداي قضب كاس أتكاد ليش دور شنو حتى أكاد لين الله بيكليهن وريه قضب كاس لحدا الشام مركب لجاه الله شو يسمى تعدين عديه قضب كليس إسكيس أتاجن معه qodobkaasi waa qodob wuxuu ka mid yahay oo ku jira oo la taagan yahay qodobo kale hal cutub ay ku wada jiraan si marka qodobkaas waxa uu ka hadlayo loo fahmana wuxuu u baahan yahay in lala soo aqriyo dhammaan qodobada asaga la xiriira ay bahwadaagtayeen ay meel ay ku wada jiraan qodobkaas cutubku uu ku jiro waxaa la yiraahdaa cutubka shanaad wuxuuna ka hadlayaa nidaamka xisbiyada iyo doorashooyinka qodobka 65 inta la tagay faqradaas hadda aad soo qaadatay aniga ku saacad 17 aad igu sheegtay 65 waaye faqrada labaad naftirkeed inta la qaadanin faqrada kale ku jiro faqradahaas inta la aqrina waxaa jira laba qodob oo kale oo ka horeeya oo qodobkaasi goorta ay hawshiisa dhacaysa ayaga faahfaahinaa qodobkaas aan u sheegay horena waxa way waxaan u maleynaa inaan ka hadlay qodobkaas waxa uu ka hadlay nidaamka xisbiyada iyo doorashooyinka qodobkaas wuxuu leeyahay لحدن السدح مركز لقصوا بالله وحوليه وإن دولة جمهورية كونفور قلب الصومال وحلا جدق مع نظام حزبية مع دام جدق معي فقرات اللي بعد قضوا كاسو حي لا إن مركز إن للسماء يقولون السماء الشرع يجي لبود ديوان قلنا حزبية بدل تاسو عمل هنا بروسيس كده حتى الدولة اللي حد يفتح بوكس عدا نظام حزبية بدل مدة اللي هو جمهور لحدن السدح مركز لقصوا لحدن أفربا وحوليه markii sharciga la sameeyo oo xisbiyada lagu diiwaan gelin lahaa at the same time na xisbiyada la diiwaan geliyo kadib waa in marka loo dhaqaaqa tirakoob 64 baa ka hadlaya tirakoob in laga sameeyo gobolada degmooyinka qaabka tirakoobkaas loo sameeyna iyo goorta la bilaabi doonana sharci gaar ayaa laga soo saaray marka labada arimood marka la helo laga qodobkaas iyo cutubkaas wuxuu ka hadlaa markii labada arimood la helo nidaamka xisbiyada la diiwaan geliyo shuruucdoodii la sameeyo tirakoobkii la sameeyo ayaa markaa waxa meesha loo socdo xitaa doorasho loo socda doorashooyinkaas oo doorashooyin axsaab ay geli doonaan oo waxa waana meesha Soomaaliya ay xigsanayso in xisbiyo ay tartamaan one man one vote laga hadlayo qof iyo codkiisa gobolada degmooyinka laga hadlo marka xigtada aad soo xiganaysaa qodobkaas si qalad ayaa loo xigtaa qodobkaasi waxa uu ka hadlay guddigaas laga hadlay doorashadaas waa marka nidaamkaas raacis la soo maro doorashadaas guud oo dadweyne loo soo ya ama guddiga hadda anaga laga sugaayo guddiga la sameyn doono waa guddiga qabanqaabada ee doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya taasoo la og yahay doorashadaas xilliga ay dhici doonto goobta ay ka dhici doonto iyo cidda wax dooranaysa everything maalinka dhacay marka guddi yar oo qabanqaaba baarlamaanka ka kooban oo qabanqaabana guddigaas waxana laga sugaayo waxa ka hadlayna waxa waa qodobka 42 faqradiisa koowaad ilaa shanaad ee xeer hoosaadka golaha wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya
guddiga goorma qorsheynaysa inay ugu dhawaaqo fadhigii ugu dambeeyay ee golaha yeesheen guddiga joogtada golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed oo halkan aanu fadhinay ayaa waxaanu ku go'aansanay cod aqlabiyada guddiga dooda kadib in maalinka axadda bisha 22 ee insha Allah in lagu dhawaaqo guddigaas oo ilaahay ka raali islaamka muddada oo kooban qabsan darteed in guddigaas ay ku qaban karayaan waa qaban karaan inta laga sugayo hawsha laga sugayo iyo in ka badan waa qaban karaan waqtiga la rabo iyo waxa ay qabtaan iyo waqti ka badan waa haystaan waxa way dib u raac doorashooyin waa ka dhaceen wadankan gobolku maysan ka dhicin waa markii ugu horreysay baarlamaanku madaxweyne uu soo dooranayo laakiin markaad fiiriso xitaa goobihii kale doorashooyin ka dhaceen min dowladda dhexe ilaa dowlad goboleedyada waa arki kartaa xilligii guddiga la magacaabo iyo waqtiga iyo hawsha ay qabanayaan hawsha waa hawl cayiman la yaqaano waa process socdo processkaas bay hawl fududeeyayaal ka yihiin waxa way waa muddo 10 ilaa 15 maalmood inta u dhaxayso waa guddiga magacaabistiisa ilaa waqtiga ay doorashada hawsha ay qabanayaan si aad ugu subscribe iyo